shirka ayaa galay maalintiisii koowaad iyadoo ay ka soo xaadireen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saddexda maamul goboleed ee raacsan waa Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaan mar kale ka soo xaadirin shirkan oo dadaal badan ay ku bixisay qabsoomidiisa beesha caalamku. Labada maamul waxay saluug ballaadhan ka muujiyeen ajendaha shirka iyagoo xusay inaanay waxba ka ogeyn waxa lagaga hadlayo wax wada tashi ahna lagala samaynin. Afhayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa xaqiijiyay in madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ka maqan yihiin shirka. Waxa la arkayay madaxweyne Farmaajo, madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo wada tashi hordhaca sameynayay ka hor inta aanu shirku furmin. Waxa sidoo kale wararku xaqiijinayaan in madasha aanay iman midowga murashaxiinta mucaaradka oo iyaguna qayb ka ahaa shirkan oo beesha caalamku ay qorshaysay in loo dhamaado oo daneeyayaasha doorashada oo dhami ay yimaadaan. Xalay madaxtooyada Soomaaliya waxa ku shiray madaxweyne Farmaajo, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Waxa wehelinayay taliyaha hay'adda sirdoonka ee NISA. Waxay ka hadlayeen arrimaha shirka maanta furmay. Labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland waxay iyagu sheegayaan in dhankooda aan wax laga ogeysiinin shirkan. Beesha caalamka oo danjiraha qaramada midoobay ugu horeeyo ayaa fidiyay gogosha shirkan iyagoo madaxda maamul goboleedyada Muqdisho ku casuumay. Fariin adag ayay qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamku xalay u direen madaxda. Dowladda Mareykanka ayaa kelmado adag kula hadashay hogaamiyeyaasha iyadoo ku amartay in aanay ka bixi karin Muqdisho inta heshiis la gaarayo. Ka qaybgal la'aanta shirka ee maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa mar kale fashilinaysa shirkan oo rajo badan laga qabay inuu midho dhalo. Lamana oga tallaabada xigi karta haddii ay sidaa kaga maqnaadaan ka qaybgalka shirka. Khadar Hayba, Saab TV.